Oh my god maxay khaldan saacadii way dhacday waliyaano horabna uma nankicin waxaan sameeyaa bal imka buugaantayda wadiyaar waa inaan galaa bal haduuba i gelinayaba ustaaska iskoolka waa inaan bal dhaqaaqa hore. Okay arday waxaan yidhaahday muddo badanna waa soo dhiganaysay marka inaan wax fahanteen iyo in kalena inaan kala saaraan rabaa ma fahanteen marka waxaan sameynayaa oo aan go'aansaday inaan macani ma soo geli karaa xoogaha waan yardaahe aad baan kaaga raaligelina ma soo geli karaa okay laakiin kasta aad daraagtay bal haddaba soo gal waxba kuma dhaafinayo arday wax ku dhaafi lahaa ku buri lahaaye. Okay arday sa hore nigu sheegay casharo badan ayaan soo dhiganay intaasoo biloodna waa soo dhiganaysay intaasoo sano marka waxaan leeyahay inaan tijaabiyaan rabaa waxbarashada English wax ma barin waxaan go'aansaday inaan imtixaan mariyo maanta waxaan dhiganay xitaa ayna jirin oo imtixaan jirto saas ku ogaaday imtixaankan inaan isku diyaarsan sa hore u sheegayba barajeynay inaad hore u soo diyaarsan xalay oo dhan imtixaankan bilaawaya marka saas ku ogaada. يا معلم امتحان كمان ما بقولين والله ده أنا بسود يارلا لكن معلم لي مشي جنعني مشي جوان سود يارلا أو ماي جاش معلم دبرنا قد يا أخي وحنا سود يار أنت وحنا ما فاهم امتحان كيك اللي جنسها. oo kale ali maxay ka galmay imtixaanyaasha ardaydu qaybiyaaba ligiir anu hal mar baan sheegay waxba ma galin hadaa lagu soo sheegin muhiimadu waa inaad wax baratid oo imtixaanka martid. aniga magacayga waxaa la dhahaa ayaan waxaan ahay gabar Soomaaliyeed riyadeedii ugu weynaana waxay ahayd inay Korea aan imaado oo riyooyinkayga aan ka dhabeeyo riyooyinkayga ugu yaryarna waxay ka mid ah inaan iskoolkayga aan dhameeyo mikana waan dhameeyay jaamacadda ayaan gudbay wiilkana waa wiil aniga saaxiibanahay 3 sano intaan jaamacadda soo galay ilaa hadda saaxiibanahay best friend waa ninka kaliya aan ka garanayo meesha oo dee isku fiicannahay magaciisana waxaa la dhahaa Minjun oo Korea markaas soo galeen isbaranay walina riyooyin fara badan aleeyahay aan ku rumaynayo meesha. ayaan waxaan ka codsanayaa inaan caawa kulano wax muhiim ah inaan ku sheegaan rabeeheed maxay ahayd imtixaankuna sababka ku fiicnaamaan. yes way fiicnaa waxaan rajaynayaa inuu ku fiicnaado mida kalena waa caadi waan kulmanaa dhib ma jirto haddana waan ka sii baxay meel ayaan ku degdegsanahay oo waano这一点零几分，建议身口上电梯从18楼下，他已经知道今晚不走昨天那条路。okay meesha jeceshay cabitaanka jeceshay hadda waan ku soo gaday waxaa rabaa xoogaa inaan banaanka ku soo socono ama meelasha Korea ugu qurux badan oo wali arag ayaan ku soo tusiraba marka ina mari ama waxaa jira meel aan ogeyn Korea ku taala okay kala ingi baladaba. واو مش قرح بدن ولي ما مرمر ما كنتي ها mar hore aan ku keeni lahaa laakiin sidii waqti maadaama aan jaamacadda ku mashquulsaneen bahayd way hadda waxaan ku sheegi rabaa inaan ka helay oo jecel yahay waxaan rabaa in xiriir kula sameeyo waan ogahay 3 sano inaan saaxiib anahay 3 sano waan ku jeclaaba nacamdaan ku sheegi lahaa laakiin waxaan islahaday maxay ahayd xiriirkiina saaxiibtinimo ayaa xumaanaya marka saacadan aan sidii u sheeg inta nin kale aysan iskusan waana ka tagin waan ku jeclahay maxaa kale hadana xiriir la sameeyo xataa daar rabtid waan ku guursan oo xitaa dartaa muslim xitaa waan noqon xitaa Soomaaliyan iman waxaa rabtid ayaan ku sameeyo please aad iyo aad ayaan ku jeclahay fahan oo wax kastaan ku sameeyo dunida waxaan yaalina ku sameeyo xitaa مرنتها بدي مرة ما إيش يجي أنا حتى ما كنت على هاي لكن ده إسلا كل الجنس ماذا ما حتى كل الدين أكل ودتين أنا حجاب انتهي maya jacaylka ayaa wax walba ka weyn ma fahantay mida kalena waxaan diyaar u ahay wax walba xitaa aduusan xitaa oo Soomaalida oo muslimada xitaa waan kugu qanacsanahay oo waan kugu rabaaba. والله عاوض قف إيجا فرحات بدن وإيجا نصيب بدن مجرد بدن 3 سنة إلاشني هاد يجعل أنا حتى أنجعل هاي عاد بأنا فرح سنة هاي
Soomahin ama sidoo kale faraxsanahay. laakiin caawada anaa kaa farxad badan Hadda maadaama jacaylkayga ku sheegtay waxaan soo socdo dhan hadda way ii fududaaneen sida inaan ku guursado xoogaa markaan waqti sisinay isla sheekeysano. Oh my god, muran bay kaa tahay aad baan faraxsanahay. Mida kalena xitaa waxaan diyaar u yahay inaan familkaaga barto. Ma anin familkayga wallaahi laakiin waxaan ka baqay in hooyaday ogolaan weydo. Nacam maxaa ku tiri hooyadaa ku ogolaan weydo nacam maxaa ka wadaa maadaama Soomaaliyeed iyo haddana ku darsaday muslim xitaa xijaabin hooyadaa inay ogolaan weydaa laga yaabaa xiriirkeena baqdin baa igu jirtaa cabsi ayaan dareemayaa. Mida kalena ani familkayga waxaa ma oranay haddaa ma lahan hooyaday ani afaarahayga iyo xidhiidhada iyo sida qofkaan guursanaya hooyaday shaqo kuma laha waayo qalbigayga qof ku raacsan yahay baan guursan karaa. Okay laakiin familkayga laakiin haddaa ogahay ani hadda diinta muslimkana xitaa waan qaatay sababtoo adi dartaana ma anaa jeclaystay. Haddaba waad iga farxisay haddaad nii dartii oran lahayd oo nii jabi lahaa. gudaha baan soo gali karaa hadda wax firaaqays wax baan ku sheegi rabaaye. Wiilkayga waa soo gali kartaa. hooyo waxaan ku sheegi doonayaa wax saas u muhiim waaye. Okay wiilkayga hadda waxaad ii sheegaysaa waan dhegeysanayay kaal haddaba na fadhiisii. Hay wiilkayga maxaad ii sheegi rabtaa oo saas oo dhan muhiimsan waad ii sheegi kartaa wax walba waxay rabtana ha ahaatee xumataan baha wanaagsan waxba iga qarsan wiilkayga. Hooyo waa wax zaid u xumeyn iska fudud gabaraan jecelnahay ayaan isguursan rabaa mar dhow ayaan doonan rabaa saas ku ogow 3 bilood amba 2 toddobaad baan isla sheekeysanaynay marka inaan guursadaan rabaa zaid baan jeclahay. Yes waad iga farxisay. Oh my god ma adoo kale wallahi waad iga farxisay. Imse bilood baan sugayay imse sano dhan guursatid guurso kugu kari waayay marka haddana keensatay sabab baan ku diidi. Haye wiilkayga gabadhan waa ima Soora wallahi aad iyo aad baan jeclahay waa gabadh wanaagsan akhlaaq leh reerkeeda xitaa lacag leeyihiin xitaa sheer baa shirkadiina isku dirsanaysiin waa Soora wallahi waan jeclahay. Ma ameeyo Soora maaha waa gabar ayaan orto Soomaaliyada oo maxay ahayd oo 3 sano iskoolka isla dhiganaynay xiriirna uu naga dhaxeeyay inaan ku barana waan doonayay xitaa mida kalena diinta muslimkana waan qaatay oo ayada darteedna maaha anaa jeclaystay go'aan ani xaggayga kasoo baxay weeyaan. hooyo saas ku ogow inaan si deganaana wax kugu sheegaan u yimiday inay fahantina ayaan rabaa si kale u qaat. wiilkayga ma waan tahay maxaa ka khaldan gabadh Soomaaliyeed ma itiraad gabadhaas isku jinsi ahayn isku shakhsiyad xitaa isku wax ahayn baad ii keentay wala hadalkay keentay diinta muslimkan qaatay wiilkayga go'aan saas seed u qaadan karta ani hooyada ilama tashay markaad sameysay waa ani ii sheegaysaa wiilkayga maxaa ka khalday maad waalan tahay ani hooyada sabab waxaa dhaniga qars markaas sameysay kadib ii sheegaysaa waa gabadha inkaarta qabta markii hore waxa saas ku baabiisay waan ku sheegay guurkana xitaa ma ogoli xitaa markii hore waxaan ku yiri waxa kugu darsan Soora maxaad ku diidaysaa markii horeba أنا ويلكي ما ضحى يحنوني هذا وحموا بقادر لا يهبي الناس ويلكي ما هو ينيد الخير شيء وحد وحبك مجرى أنا أجعل يستين ذكرنا قانك أنا جاري مها يلا ينحرر بس بنا قد حيانا كو إجيسيا يا رب ذكرنا جعلكم مها هذا دور الشيء جنسي أهم ما هو قلبي حد ورياها قلبي أنا ود أكتب بلا أبينا كو سكري ده هو وانوجه لكن سدي قلبي قف كو جعل جهي فرحتي ده مرة بتدو أنا فرحتي ده قف كان كهلا واكاس ما كوش هاي محا هو مرقونيسا go'aankaasan gaaray. Okay haya gabadha jeclaatay ma xumeele kiisi waa maxay wax kale sameysay wiilkayga maskaxdayda ma qaadanaysa madaxa bimki xanuunay inaa weybigaysa hooyo ifahan go'aankaas ana gaaray waan ku qanacsanay qalbigayga jeclaaday inaan diintaas qaato ee wax kale hooyo maaha hooyo waan ku baray ifahan ana go'aankaas gaaray markaan 25 jir baan ahay go'aankaas ana gaaray mid kalena qalbigayga qofku jecel yahay ayaan raacaya wiilkayga. Oh my god madaxa xanuunay waan qaadan lahay waxaan sameynaysid inaan ka fikiray tahay
وما ويلكي وحنا قبل آبانك وقصو كوري آبها إن لما جوجو ورفاد بانك وقصو مر مساسنا تعبكي جو خسار سيد بيها انت مساس النورد وقصو رفاضي ما هو لكن سو قبل محاربة إنا كبرو ومدة أسبوع برتين أو شخصية دي برتيها حكمين أدونا برن قبل هو يدا فرحدي جعشهن gabadhaas waa baran doontaa oo waa la kulmi doontaa hadii kale haday farxadeedii waxa ka soo jeedina lama kulmi hooyasan ku sheegay ogow gabadhaas hadii nolosheeda ka baxdo aniga nolol bamilihi iyada way nolosheedu inkan kaasi tagay ka fikirna kale wiilkii kale uu barayaa tagin يا أخوة محايد باتدا مانتيسو ماتين محيحيد فحنس لها صورة ودس وحيابا وكوها قاقي أي زيدا يوم بقى يهودا لقي أديقي الويدا كورنو وقلان ويدو ودي حرركي نديدو كورنو زيدا يوم بقى يهودا الويدا أنا حسمية والله زيدا maya taas ma dhacayso sababtoo hooyadii waxaan ka heliyaa xukumin oo adoon baran marka inay ku barato rabtaa aniga saan ku garanay dabiicadaada dhaqankaaga ani zayd baan ku jeclahay ma faanti marka hooyadii saas oo kale way ku jeclaan doontaa wali marka waan la kulmay hey wiilkaygi waa soo dahday laakiin maxaa dhacay waa soo dahday bal kale hadaba soo galbal wiilkaygi hooyo waan soo dahay sababtoo gacalisadeeda ayaan guriga keenay hadiyada intii sagaajinaysa hay habaryar magacayga waxa la dhaayaan wanaagahay hadaba wiilkaygi soo dhaaf soo gal okay hooyo saan hore kugu sheegay waa gabadhu waa kaas baro isbarta mid kalena waxaan go'aansaday hal week inay guriga joogto saad isku fahantiin oo isku baratiin oo daana dabeecadaheeda u fahantiin digana ku fahanto oo aad isbaratiin waayahay wiilkaygi dib ma lahaan gabadhan saddex noqon rabo inaan barto waa caadi dib ma lahaan ay hooyo wallahi waad iga farxisay runtii dawaaka waxaan ku yidhi hello hay hadaba okay hadii imika u baahan yihiin kada mayman hajisna kada ma soo socdaa si diyaari waaya si fadhiiso ku dheh angaalso hooyo la sii joog oo guriga sii joog muddo isbuucana waa joogaysa hadana meel shaqaale kaga yeeray maam hadna hadhow tole bye dhageyso gabar yahay ma fahanti wiilkayga waxa ku baraaba iskariya wadanka waxa ku keenaya inankayga inaan Ingiriisi baraba oo madaxad ka qaado wad waashida diintiisii bad ka saarto diinta muslimkaad ku soo dartaya waxaan oo dhan faraha fajigaaga hooyo dhageyso anuu sabso aan ku ixtiraamaya go'aankaaga wiilkaagana waad u baqaysaa laakiin laba kelmadood yar baan ku leeyahay anu meeshan uma imanina reerkaaga burburiyo midda kalena ha ay xukmin adoona wali baran please degdeg badan waa amal shaytaan horta ay baro kadibna waxa rabtid iga aamin ma fahantay imkana gurigan kama tagayo na wallahi ma ogi bisinki raxmaanka nayna inantaadana inaan sabaan rabay maxaa huu badiiday baan ku qanciyay rab gabadh yar buu keensaday Soomaaliga ka timid Soomaaliga aan garaneynay bisinki raxmaanka Kooriya timiday barasho timidon buu jeclaaday ka harbaan ku kari waayay hataa wiilkayga diintay ka saartay inanta yarsaanskiga eriyaan garan waayay wiilkay ka harbaan kiida way diiday ma garan waa degdeg xaajo oo qafam imka waxaan ka fikiraysan u kala fogeen lahaa saaxiibadigaas inaan dhigaan raba mid kalena reerkayga bay burburisay wiilkayga bay halaysay wax faa'iido ay soo kordhinaysa ma arkayo ma dila aragtay wallahi wiilkayga ayaa ma isbedelay baa xataa aniga dhanba qalbi xanuun wiilkayga meel uu ku dambeeyna ma ogi anu wallahi gabadhaada qof aan ahayn ma rabo yes okay asxaabta ii fiirsada shirkadaha kale waa inaan share la wada galnaa ganacsigeena imka alxamdulillah kor buu socdaa marka waa inaan ku sii wadnaa shaqo sida hadeer bani sharaxay waa inaan ku dhaqaaqnaa markaas si la socda inaan guul gaarno hadartii
waad mahadsantihiin aad baa mahadsantihiin haddana shirku dhammaaday maanta waxaan qaatay go'aankaygu adkaa oo kasoo laabasho lahayn aan jacaylkaaga dartii bliis waxaan kaa codsanaya markaad akhriso fariinta hay soo raadin hayga dabayma bliis codsi haddaad jeceshahay midda kalena hooyada waxaa maqlayadoo leh dhibaata igu tahay marka waan kaa tegay go'aankaas ayaan qaatay bliis reerkaaga ha burburin Please iga fur albaabka waan ku baryayaa albaabka iga fura ugu yaraan hay haddaba kaale wax cun haddaba ugu yaraan wiilkaygiina hadallo intaas sanad dhan baad iga xanaaqsanta xataa inamaad lazimiinkayga xataa ugu yaraan wax maad cuntid caafimaadkaaga xataa imika waa caataad noqotaa la mala oh my god wiilkaygii waa inaa wiilkayga wax u sameeya inaan saas u fadhiyo xal maahi waa inaa wax sameeya adi iyo halkan maxaa ku keenay meeshan ya waxaan rabaa inaan waxyaabo qaar ansaxo inaan kula hadlano waan rabaa bliis gudaha ma u gali karna soo dhaaf soo gal xaggan uma iman dheeldheel bis waxaanu imday inaan waxyaabo badan ku sheego hal sanab dhan aan kala maqnayn wiilkayga ma cuno wax ma cabo ma soo baxo dharka xitaa ma garanayno iska bedelo bliis waan ku barayaa gurigeena soo noqo midda kalena inaa wiilkaygu bedesho wiil fiican ka dhigta maan dareemin anaa kugu khaldamay xataa gabadhii aan ku diri rabay hooyadeed markaan la hadlayo aad maqlayso wax walba waan kaa raaligelin xataa waan isku soo laaban xataa wiilkayga waa isguursanaysin bliis wiilkayga halis ayaa ku jira wax ma cuno xaaladiisa ma garanayo iga aamusa ilama hadlo xaggii ugu darnaa u maraya xitaa ma garanayo intaas sanadkan dhanana wax cunay hooyaanahay waad dareemi kartaa bliis wiilkaygii inaad u tagtid baan kaa rabaa oo la hadashid xitaa iska kii caafiis ku soo noolaanta wiilkaygii waan ku barayaa wax walbana waan kaa raaligelinayaa wiilkaygii la-aantii ma noolaan karo aabbana ma leh aniga keliyata ayaa kusoo rafaaday inuusaana iga noqdana ma rabo waxaan kaa codsanayaa wiilkaygii inaad iska cafisid anigana iska kii cafisid gaar ahaan ani wiilkaygii albaabka fur wax baan ku wadaa hadiyad qofta ku intimiday qofaa ku yimideeda albaabka fur wiilkaygii qofkaas inaa ogaatidna daruuri waayo wiilkaygii albaabka fur waan ku baryayaa wiilkaygii waxaa kuu timiday jacaylkaagii ayaan baa kuu timiday wiilkaygii fur albaabka fiirsidee hooyo marutaba mise waad igu kaftay mise runba ayaan baa timideed ayaan baa kula joogtaa god ma adiga mise waa indhahaygii waxaan moodaya inaan soomaaliya ku laamata iga tagtay xilligii dambe magaalada maya kamaan tegin agagaarkaaga uma joogay aad baan faraxsanahay maadaamaan ku hela ugu dambeyn adii timiday la-aanta dunidu waa abaar xataa ma noolaan karo waan ka xumahay inaan kaa tegay runtii ahaantii waan ka xumahay aad baan faraxsanahay inaan mar labaad ka arko rajaankaa lahaa waan ku jeclahay ilaa imika runtii haddii tolbaadii soo noqotay maahino igama tegisid ha iga tegin waan ku barayaa la-aanta ma noolaan karo waan ku barayaa hooyo maad u jeedaa ayaanu muddo badan naga maqneed ayaa hadda noo soo laamatay mar dambeyna kaama tegay waa ballan haddii tole kaama fogaanayo midda kalena okay waa mahadsantahay iga fogaanin hooyo aad baan faraxsanahay waad iga farxisay okay wiilkaygii inaan kaa farxiyo waajibkayga iga raali ahaadana midda kale waayahay hooyo hadda wax walba waan hagaajinaynaa soo maahin igama tegayso
ها gacaliyahaygi marnaba kama fogaanayo haddana na mari garkiina kugu baxo qoday weyn baa way ka kala garka ka saxiire haddaba ha inta waqti qaadanaysa ana cuntaan karnay muddo badan cunto muusan cunin marka waan soo laaban waayahay haddaba ana kala garka ka xiire oo weyn baa waqti ku garan waaye intaana waa kaftan kala gacaliye waayahay haddaba iskuma fiirsan muddo badan in waqtiga iga haddaba si tartiib u joogsiyaa sankaaga xiiro haddaba inaan ku dhaawacana ma rabin faantay istaaga asaas istaag dhaqaaqin very good Farida ayaa tahay okay haddaba inaan wax yar ka xiiro saadii hore kugu socon rabaa suqaarkaygii ay suqaar badan waa ka sii qurux badnaatay sidii hore okay haddaba kale brushkan aan kugu masaxay hadda suqaar ayaad noqotay sidii hore aad ka salaamatay quruxdaada miyaaradda la iska fiiri wow nayaan beenta ay sheegi waa been baad igu soo sabaysaa niyadda ay dhisaysaa may walaa waa runta yaamin okay waayahay hooyada cuntada ku soo daashay waa inaad kulli dhamaysaa ma fahamtay afka geli haddana waa cun okay waayahay haddaba waan cuni laakiin qonaan iga qaad inaan mar labaad aad iga fogaanin doonin oo haddana midka kale wuxuu ka qarsan doonin waayo ma adkaysan karayo inaad iga fogaato wallaahi la-aanta xanuunkaan dareemadaa ogaan lahayn qalbigay xanuunay waxaa hore iska dhaaf haddan kula joogaa mana ka fogaana kumee deewaanku waaye bisinga fadhigan kaa raadin imikana qolka kuma jirtin yaa xaggee joogtaa maya musqusha ayaan ku jiraa xoogaha isug bal qalbi waan ku imaan doonaaye okay musqusha hore layga soo baxniyo yaa waa waxaan saacadan fariimaha isoo direeno suuqlaan fiiriya shaqada aan armay ku saabsan tahay haddaad kaa baqaysid inay hooyadaan ogaad maxay haysirtaa 2 sano aqrinaysay waa inaad beerta iskula kulannaa welina si degdega maya sii ku dhacday sidaas